cisbitaalka gargaar waa kan Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe oo ah doctorka toddobada ubadaba si tabarucaada ku qalay isla markaana siiya adeega caafimaad oo bilaasha waxa uu doctorku ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u gargaaraan isla markaana wixii ay taakulayn karayaan ay ku bixiyaan waxaanu sameynay qaliinkii toddobaad baan ku sameynay Foosiya saarkaysaan muddo xalata lixdii barkii habeenimo ayaanu qaliinka u sameynay ilaahay waa nagu guuleeyay ma sha Allah saarkaysaan ba toddobadii carruur iyo Foosiiba waa kuwan waxay martuu yihiin dadka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaanba run ahaantii waxay maraysaa waa beel dhan weey saarkaysaanba waxa weeyaan waa 5 inan iyo 2 hablood waxay u baahan tahay in gurmadka looga kaco oo markaa wixii loo qaban karaba loo qabto macaawinadu deegaanka way ka badan tahay in la quudiyo marka waxay u baahan tahay fikir dhaba loo keeno oo waxbarashadooda iyo hurdadooda iyo cuntadooda iyo wixii loo qaban karaba loo qabto annaguna dhinacayaga wixii caafimaada haddii ilaahay ka dhigo ilaahay nala qabto gargaar ahaan waanu qaabilaynaa wax kastoo ku yimaado diyaar baan inuu qabanno taasaan idinku soo dhaweynaa haddaad tihiin Home Cable TV oo aqbalay iyaguna codsiga aanu ka codsanay inay noo yimaadaan si ay nagula qayb qaataan farxadda iyo damaashaadka ilaahay xamdiga ay Foosiyi ilmihii toddobaad maanta aanu qalinka ugu sameynay waatan hooyo Foosiya waxay nooga baahan tahay caawin iyo in laga warhayo hadda waa qoys buuxo oo dhammaystiran wax awooda uma laha xagga dhaqaalaha waxaanay sugaysaa walaaladeeda islaamka gaar ahaan Soomaalidu meel kasta ay joogaan doctorka gacantiisa Allah barakeeyo muraadkiisana Allah siiyo abaalkiisana mana gudi karayo waxa weyn ilmaha ugu horeeyay maalintan tagay wajigu igu soo dhaweeyay wali aalaanka igu soo dhaweeyay waxaan dadkayga ka waayay ayuu ilaahay ummadda igu daray Allah barakeeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan wixii muslim oo dhan Allah barakeeyo shaladii u dambeysay waxa yimid Nuuraddiin niyadu i dhisay wuu soo dhaweeyay wuxuu igu ballan qaaday carruurteeda inuu iskuul igu daro magaalada haddaan galana waxa moorarka i dhisan wax moorar iga dila mana rag Allah barakeeyo walaal haddaba wixii aad tari karayso ugu soo hagaaji account-kan ilaahay ayaa ajir iyo xasanaad ku siin doona